dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya waxa uu ku tallaabsaday horumar xawli dheereeya tan iyo intii kacaanku uu dalka ahaa uu majaraha maamulka u hayay iyada oo sanad waliba marka la xusayo sanad guurada ka soo wareegtay 22 Oktoobar markii dalka kacaanku ka curtay 1969 laga furo magaalooyinka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya mashaariic laga hirgeliyay inta u dhaxaysa 2 Oktoobar haddaba waxaa jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre ariga uu ka gooyay mashaariic kala duwan oo hirgelintooda ay ku baxday guud ahaan lacag dhan 908 milyan iyo 800 oo kun oo shilinka Soomaaliga ah oo mashaariicdaasina ay tahay mashaariicda laga hirgeliyay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho furitaanka iyo xadhigga goynta mashaariicdaasi waxa lagu maamuusayay sanad guurada 16aad ee ka soo wareegtay markii kacaanku uu ka curtay dalka 22 Oktoobar sanadkii 1969 madaxweyne Siyaad waxa ku weheliyay intii uu xadhigga u ka goonayay mashaariicdaasi saaka magaalada tan Muqdisho madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Sareeye Guud Maxamed Cali Samator madaxweyne ku xigeenka labaad Jaale Sareeye Gaas Xuseen Kulmi Afrax gudoomiyaha hogaamo wasiiro iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga iyo dawladda Jaale Siyaad madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya iyo madaxweyne ku xigeenada iyo wasiirada iyo hogaamada iyo mas'uuliyiinta kale ee ka tirsan xisbiga iyo dawladda waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweynayay mashruuc kastaba marka xadhigga ay ka goynayaan mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada mashaariicdaasi ururada bulshada ubaxa kacaanka Oktoobar iyo dadweynaha ku dhaqan mashruuc walba degmadaha uu u dhow yahay xaafadaheeda iyadoo halkaasi ay ka muujinayeen fantasiyaha loo sameeyo xuska 16 guurada ka soo wareegtay 22 Oktoobar sanadkii 1969 markii ka curtay dalku madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxweyne ku xigeenada iyo madaxda kaleba waxa halkaasi dabadeetana ubaxyo ugu dhiibayay ubaxa kacaanka Oktoobar iyadoo halkaasi dadweynuhuna ka tirsan xaafadaha magaalada tan Muqdisho ee mashaariicdaasi laga furayay ay halkaasi ku ciyaarayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayna ka muujinayeen farxadooda ugu horeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu xadhigga u ka gooyay xarun cusub oo loo dhisay xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed iyadoo xarunta dhexe ee cusub ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed lacagta ku baxday ay dhan tahay 79 milyan oo shilinka Soomaaliga ah madaxweyne Siyaad waxa si kalgacal leh halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada xisbiga ururada bulshada ubaxa kacaanka Oktoobar iyo dadweynaha ku dhaqan degmada laga hirgeliyay xaruntaasi ee magaalada tan Muqdisho waxaana halkaasi uu madaxweyne Siyaad uu warbixin u kaga dhageystay taliyaha hoggaanka dhismaha booliiska General Jamac oo isaga hoggaankaasi dhismaha booliisku ay hirgeliyeen xaruntaasi bilicsamida leh ee ka kooban qaybaha kala duwan iyadoo xaruntaasi ay leedahay xafiisyadii maamulka meelihii lagu shirayay iyo qaybihii kala duwanaa ee laga maarmaanka u ahaa maamulka xaruntaasi dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed aan idinku soo dhaweynaynaa guriga kan weyn oo lagu magacaabo guriga ummadda weeye laakiin waa xarunta dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed xaruntii loogu talagalay weeye gurigan wuxuu ka kooban yahay xafiisyo hogaamadu leeyihiin xafiisyo caadi ah hoolal fadhi meelihii serviska ahaa oo ahaa maqaayadii baararkii dukaamadii ay xisbiga ama hawlwadeenku ay hawsha ku maamulanayeen masaajidkii weynaa oo xaggii diinta ahaa wixii oo dhan way isku wada qoofalan yihiin garaashadii baabuurta hoosadii baabuurta iyadana lagu habeynahayay wixii oo dhan way isku wada qoofalan yihiin xagga ku baxday waxa weeye 79 milyan weeye waa qurux badan yahay waana aad arki doontaan waana qalabkiisuna waa ku dhan yahay waa maasantii jaale noo war waxba intaas loogu dhexeysan intaas nafteenu soo qoobay qaashka isku booqdo way iga nafta sugaha jaale barwaaqada Soomaaliyeed ayaa dhinacyada ugu mashquulay waxaad
جالي محمد سياد بره وحرقه وكجوي مشاريع ده وحكم ده حرون عصب الله لسي أوروكا دقدقة إسكاشتوينكا الصومالية يدو أوروكا سيها إنه أجنهي بحده وقفرديه دينا كقيب قادشة هرمانين تندقالها دلك الناس لما رهان تاسينه بهاي حرون عصب هوليسه وفشدو xarunta ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee loo sameeyay waxa lacagta ku baxday ay dhan tahay 860 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waxaana taasi ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay madaxda iskaashatooyinka ee dalkeena mas'uuliyiinta iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadaha u dhow xaruntaasi cusub ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed ubaxa kacaanka iyo dadweynaha kale ee halkaas ku dhaqan xafiisyo ka kooban 26 qol dhismo wadooyin dhismo jardiinooyin dhismo 10 garaash dhismo 4 bakhaar oo yaryar dhismo musqulo 6 dhismo haan biyood iyo ceelal 4 iyo 25 qaadad tiyaatar qaada 2400 jaalam madaxweyne waxaan aad iyo aad hambalyo iyo bogaadin ugu soo jeedinaynaa وسارد المالية ولا لا يرجلسي جالما ummad walba oo kamid ah ummadaha ku dhaqan adduunka kan aynu ku noolnahay waxa ay ku dadaashaa sidii ay u soo nooleyn lahayd isla mar ahaantaasina aanay uga tagi lahayn dhaqankeeda iyo hidaheeda iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha waxaana jirta in dalalka adduunyadu ay ku faanaan markaasi waxyaabihii hore ee dhaqanka ay ku lahaayeen isla mar ahaantaasina ay goobo ay ku ururiyaan waxaana loo yaqaanaa goobaha lagu kaydiyo amuurahaasi madxafyada ama museumka waxaana jirta in ummadaha fara badan looga yimaado dhulal fara badan oo kumanyaal mayl isla mar ahaantaasina ay tahay taasi mid lagu soo daawasho tagayo waxyaabaha qadiimka ee markaasi halkaasi ay dhigeen wax ka tilmaamaya taariikhda dhaqankooda iyo caadooyinkooda iyo waxyaabihii hore ee ay ku sugnaayeen oo markaasi laga sameeynayo dheehasho markaasi halkaasi laga arkayo madaxweynaha Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre mashaariicda uu ka furay Satan Muqdisho waxa kamid ah madxafka qaranka oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho isagoo madxafkaasi uu yahay mid aad iyo aad u bilicsan isla mar ahaantaasina la doonayo in lagu kaydiyo waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed dhaqanka iyo caadooyinka u ah iyo waxyaabaha hidaha u lahayd iyo waxyaabihii dadkeenii Soomaaliyeed awoowayaasheenii hore markaasi ay isticmaali jireen madxafkaasi qaranka lacagta ku baxday waxay dhan tahay 45 milyan oo shilinka Soomaaliga ah أشول بول أمالي بوقتا wanaag waxaanu saaka furaynaa museumku ugu weynaa ama ugu horeeyey ee qaranka Soomaaliyeed halgankiisii dheeraa oo xorriyadiisa iyo danihiisa iyo dhan kastaba uu ku raadinayay inuu ku ururiyo si dhalinta bari soo koraysa mid yararkuba ay ugu xusuustaan kuwani waxay muujinayaan dhagxaan aqaanta u ah dalkeena oo la xiriirsan baabuurka oo inta u shaqaysato kuwani waxay muujinayaan
caasimada dalka